bismillaahi raxmaani raxiim. Asxaabta soo dhawaada. Maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay muus. Waa maxay muus iyo sida loo isticmaalo muus iyo qaybaha uu ka kooban yahay muuska. Marka haddii runtii cashirka koowaad aad soo daawatay oo cashirkaan u dambeeya soo dhiganay oo soo daawatay wuxuu ku saabsanaa keyboard partieska iyo input device-ka ayuu ku saabsanaa. Marka keyboardka wuxuu ka mid yahay muuska wuxuu ka mid yahay input device-yada oo sheegnay ayuu ka mid yahay. Marka waxaa ka codsanayaa video sidii cashirka aad la socoto aad u fahanto videogaas aan cashirkii ugu dambeeyay soo duubnay la soco sidii cashirkan oo la qabsato kuwanka insha Allah. cashirka kaleeta wuxuu yaalaa hoos ayuu yaalaa bal linkiga hoos ayaa ku dhufo sidii cashirkii ku dhaafay aad ula socoto. waad mahadsantahay. waxaa gudaha ugelinaa cashirkeena. maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay muus. waa maxay muus? Mouse is a mounting device. waa aalad wax lagu tilmaamsado muuska. muuska sidoo kale wuxuu ka mid yahay input device ayuu ka mid yahay waxyaalaha computerka wax geliyo ayuu ka mid yahay muuska. waxaa jirta mounting iyo bound. waxaa la hayaa midkan flatten dhaqaaqaya bound la hayaa. bounting waxaa la aalada soo gelinayo inuu dhaqaajiyo flatten dhaqaajiyo Allah. marka waxaa ka mid ah mouse touchpad iyo muuska waxaa aad u fudud. isticmaalka muuska ayaa fudud maxaa yeelay touchpad maanta ma isticmaalaysid xogo faalka xanuujinaya. marka waxaa aad u fiican inaad fahanto isticmaalka muuska. marka waa maxay muus? Mouse is a mounting device. waa aalad wax lagu tilmaamsado. wuxuu leeyahay two buttons. laba button ayuu leeyahay. labaas button waxaa lagu magacaabay left and right. bidix iyo midig ayaa lagu magacaabay. iyo waxaa kala jirta oo leeyahay ka mid wheel. midkan dhexda la wheel. marka hadda waxaa soo booqanay website-kii soo booqanay. waa kana website-ka dhex joognaa. marka sababta u booqan waxay tahay inaan xogo badan aan ka ogaano. wuxuu leeyahay every computer comes with a keyboard. computer walba wuxuu wataa keyboard and mouse iyo mouse ay wataa. sida tusaale desktop-ka wuxuu leeyahay keyboard ayuu ku imaadaa iyo mouse. laakiin laptop-ka wuxuu ku imaanaa touchpad. waxaa la ku imaanaya oo dhexda midka dhexda wax ku dhaqaajin waxaa la touchpad iyo wuxuu ku imaadaa keyboard oo ku dhagan laptop-ka. marka muuska desktop laptop sidoo kala duwan. desktop-ka asigaasi toos wuxuu u shaqeynayaa korontoos toos u shaqeynaya. waxaana la midka systemka weynka wata ayaa la hayaa desktop. marka desktop-kana wuxuu wataa keyboard iyo mouse. touchpad ma leh. laakiin laptop-ka wuxuu leeyahay keyboardna uu leeyahay oo dhex dhagan iyo touchpad ayuu leeyahay laakiin mouse ma leh. marka muuska muuska iyo touchpad waa isku shaqo. marka waxaan aad u fudud isticmaalka muuska aad u fudud maxaa yeelay touchpad markaa isticmaalaysid faraha ku isticmaalaysa faraha ku xanuunayo. laakiin muusku waa shaqo fududeen shaqada uu ku fududeynaya muuska. marka muuska wuxuu leeyahay laba button oo aad loo isticmaalka badan yahay. waxa waaye labaas button. marka mid walba waxa qabanaya sheegi doona. marka qaybta waxaa la left click ama left button. qaybtan waxaa la right button. right click marka uu leeyahay marka lagu dhufanayo hala right click. left clickna marka lagu dhufanayo la left click. laakiin buttonka waxaa la left button iyo right button maxay ka qabtaan. marka kan left button waxaa loo talagalay sheyga aad rabto gudihiisa inaad gasho. right button waxaa loo talagalay inaad information waxaas aad ogaato. tusaale hadda aan tijaabino hal program soo kacsi doona insha Allah.
right iyo left sida u shaqeeya marka markii lagu dhufanayo alla left button left click ama right click alla markii lagu dhufanayo tusaale hadda waxaa u koomaya right click sheegana u baahanahay ku waxa leeyahay right click markaan dhaho waxa ay soo baxaayo waxyaalaha ay soo baxaayo information ay soo baxaayo ka bacdi waxa ka doonaya open waxa ku dhufanayaa open gudaha noo galaabo waxa ku dhufanayaa left click ku dhufanaya qayb bidix ku dhufanaya oo muuska markaas toos Microsoft igu soo kacaya marka sidaas waa ka igu soo kacay hadda u baahan la ka salaya leeyahay marka sidaas way tusaale hadan tijaabino aan galno my PC am this PC saw taqaanaba aan galno waxaan leeyahay ku waxa taabanaya right click shayga waba aad rabto marka waxa leedahay right click ka bacdi ayaa leedahay open up adinaysa flatter ka bacdi waxa leedahay left click ayaa leedahay oo si toos ah kugu soo kacaya iyo qaab kale aad jirto qaab kale waxay tahay waxaa isticmaalaysaa kaliya left click laba mar left click u dhufanaysaa si toos ah programka ku soo kacaya marka sidaas waaye left click right click shaqaas ay qabtaan marka waa sidaasi waxaan u maleynayaa inaan muuska isticmaalkiisa waad la maasantiin noloshooda